Carwad shaqo ay soo qaban qaabisay Muqdisho Job Fair ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Bandhigan oo ah markii saddexaad ay soo qaban Muqdisho Job Fair ayaa waxaa ka soo qayb wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dhalinyaro. Ujeedka bandhigan ay ahaa mid dhalinyarada lagu wacyigelinayo sidoo kalena loo iftiiminayo shaqooyinka iyo fursadaha hal abuur ee ka jira dalka ayna xoogga saaraan shaqooyinka xirfadda gacanta. ugu horeyntii mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay bandhig carweedkan ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay sameeyaan dadaal ayna qayb ka qaataan dhismaha dalka. ugu horeyntii waxaa furay bandhigan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwa Sahra ayadoo sheegtay in dhalinyarada qaasatan dumarka ay qayb ka yihiin kuwa wax soo saarka fiican ku leh bulshada. marka waxaan u gartay inuu ka wada khayr badan yahay barnaamijka kale waayo mar walba gabadh baa ku soo hagaagta gabdhuhuna waxaad moodaa in ay maaragtay maxaan dhihi karaa hadda ragga ka fiican yihiin ma dhihi karaa marka waxa weeyaan waa loolan siyaasadeed markii laga hadlahayo waa qaybtii maxaan dhihi jirnay gabdhuhu waxay wadaan baa mar walba meel gaadha insha Allah barnaamijkan waxaan u rajeynayaa khayr fara badan. dhanka kale wasiirka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa dhankiisa sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay inay horumariyaan xirfadooda asigoona sheegay in wasaaradda ciyaaraha ay mar walba garab taagan tahay dhalinyarada. wadanka waxaad u maleysaa in farsamada aad u yaraatay qof kasta wuxuu ku hanweeyahay maanta inuu xafiis fariisto xafiis wadan ma horumariyo arintan ay sheegayaan wasaaradda dhalinyarada sportiga markaas way garab taagan tahay in la shaqeyn doontaa waqtigu adag yahay waa la socdaa laakiin waa ka bixi doonaa haduu ilaahay dhibkaas. sidoo kale gudoomiyaha degmada Waabir ayaa sheegay inay wadaan qorshe la doonayo in dhalinyarada fursado loogu abuuro asigoo dhanka kale dhalinyarada kula dardaarmay inay muujiyaan kartana ayna u dulqaataan xaaladaha shaqo la'aan ee ka jira dalka. waxaan leeyahay gobolka Banaadir qorshooyin badan oo ku aadan shaqo abuurka dhalinyarada waa ay wadaan mana rabo inaan ka hor dhaco waxaan u deyn doonaa insha Allah dadka ehelka u ah laakiin waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo dhalinyarada maanta gudoomiyaasha degmooyinka 17 degmo macna saddexda deegaan lagu daro 20kaas waxay u badan yihiin 4 meelood 3 meel kamid ah dhalinyaro waana ka wareysaan mudooyinkii ugu dambeeyay dadkii ku soo biiray dhowr jeer aan soo jeedinay shirar badan baa ugu fadhiisanay waayo waxaan iska soo qaadaynay meesha aad fadhiisiin bilooyin ka hor sanado ka hor sidaas la mid ah gudoomiye walba wuxuu u ahaa shaqo la'aan sidaan oo kale u soo fadhiisan jiray hal abuurkiisa iyo doodahan ugu qayb gali jiray run ahaantii waxaan aaminsanahay rajadeenu inay aad u fiican tahay process badanna waa wadnaa inta badan processku waa laga yaabaa inuu daaho laakiin wax miro dhal ah oo aadan hore loo arki jirin oo ugu yaraan barbilow fiican ah in insha Allah gobolka Banaadir laga arki doono waa rajeynaa. Cabdiraxmaan Shaahu warbaahinta qaranka Muqdisho.